waxaa sharaf in aan idinkala soo qayb galo daahfurka kulan wadareedka golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ah kii labaad ee noociisa ay isugu yimaadaan si ay isula lafaguraan una wadaagaan hawlaha mudnaanta u leh qaranka iyo hab loo xoojin karo wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee xukuumadda si loo fuliyo baahiyaha bulshadu u qabto adeegyada dawladda waxaa laga maarmaan ah in ay hay'adaha dawliga ah iyo wasaaraduhu isku faham ka yihiin si dhowna u wada shaqeeyaan mudanayaal iyo marwooyin ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo qabtay kulan wadareedka waxay yihiin kow dardargelinta nidaamka wada shaqaynta hay'adaha dawladda isla jaanqaadka golaha saalax wuxuu ku tilmaamay in jaanta iyo jiibta hal mar la isla qaado marka waa qodobka koowaad qodobka labaad falanqaynta hawlaha hortaminta u leh xukuumadda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda qodobka saddexaad adkaynta dhaqangelinta xeerarka dalka iyo hirgelinta qorshe hawleedyada xukuumadda si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka u degan afar fahamka iyo u hoggaansanaanta xeer hoosaadka golaha wasiirada marka ay waajibaadkooda goluhu gudanayaan shan dhowrista iyo ku dhaqanka habraacyada heshiisyada ay hay'adaha dawladdu ula galaan hay'adaha kale ee dawliga ah hagaajinta habka xog wadaagidda hay'adaha dawladda dhexdooda iyo la wadaagidda dadweynaha xog midaysan mudanayaal iyo marwooyin labada maalmood ee aad ku jirtaan kulan wadareedka waa in aad dareenkiina maskaxdiina iyo muuqaalkiinaba isugu geysaan sidii habkii loo hirgelin lahaa hawlaha hortaminta ula qaranka waxaa lagama maarmaan ah in aad maanka ku haysaan in kulan wadareedkani kusoo beegmay xilli ay dadkeennu la daalaadhacayaan abaaro iyo amni darro isbiirsaday mana jirto cid aan mas-uuliyiinta halkan fadhida ka ahayn oo ay sugayaan waxaa la yidhaahdaa madax meel ka sarreyso oo la salaaxa ma leh cid kale oo mas-uul ka sarreeya oo u maqan dadka meeshaan fadhiya ma jirto kulan wadareedkani kama dhigna damaashaad iyo in xubnaha golaha wasiiradu jawi bedelasho ku jiraan sawirana wadagelayaan sheekaysanayaan ee waxaa looga gol leeyahay in ay wada faqaan maskaxdoodana tuujiyaan soona saaraan qorshe hawleed lagu badbaadin karo dalka iyo dadkaba oo ay duruufo adag haystaan waxaan ku rajo weynahay in gabagabada kulankan oo kulan wadareedka ah ay ka soo bixi doonaan natiijooyin waxtar u yeelan doona waxna ka bedeli doona mustaqbalka dadkeenna iyo qorshe hawleed lagu samata bixin doono shacabkeenna tabaalaysan waxaan idinku adkaynayaa in si degan aad u akhrisaan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey isla markaana aad ka soo dhalaashaan qotominta iyo adkaynta tiirarka ku xusan ee udub dhaxaadka u ah dawlad dhiska Soomaaliya waad mahadsantihiin kulan wadareedkuna waa inoo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh